boob iyo barakicin xooggan oo ka socota degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir dadkii ugu badnaa oo maanta ku dhintay iska horimaad toos oo dadka shacabka ay la galeen ciidamada dhulboobka sameynaya ee uu soo diray madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo waliba dhaawaca iyo dhimashada oo tirabeel noqday xaafadaha qaar dadkii deganaa inta badan qaybo ka mid ah degmada Yaaqshiid oo la qaxiyay ama la barakiciyay xaalad adag oo ka taagan magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa halkaydii ku soo gudbinaynaa fadlan daawade haddaad ku cusub tahay baraha aan ku leenahay bulshada ku soo biir channelka subscribe noo saar muuqaalka like garee oo share garee aan ku bilownay magaalada Muqdisho waxaa ka soconaya dhulboobkii ugu badnaa iyadoo oo saaka hirta waa bariga lagu kalahay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir qaasatan degmada Yaaqshiid halka loo yaqaan Tokyo oo ay degan yihiin dad badan oo danyar ah ciidamo kala duwan oo u badan ciidanka booliis military iyo ciidamo kale oo far badan ayaa galay degmadaasi waxaana la arkayaa dadka oo guryaha si qasab iyo xoog looga rarayo xabadda ciidamadu aysan u aabayeelayn saqiir iyo waliba kabiir midnaba dad badan oo dhalinyaro u badan oo banaanbax dhigayay ayaa xabaddaasi ku dhaawacmay halka qaar kalena ay ku dhinteen dad badan ayaa ka barakacaya xaafadda oo guryahoodii si xoog looga raray waxaana ka taagan xaalad fariir ah magaalada Muqdisho iyadoo dadku ay la yaaban yihiin dhulboobka iyo waliba mooryaannimada iyo balaayada uu sameynayo madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhamaaday ee xasan sheekh maxamuud taasi waxaa ka sii daran ganacsatada aan damiirka lahayn ee habeen iyo maalin sidaasi ugu kalahaya dadka masaakiinta ah ee danyarta ah ee ku nool gobolka Banaadir oo markii horeba toodii iyo waliba nolol maalmeedkoodii dhibaato badan ku qabay xaalad adag ayaa ka jirta magaalada Muqdisho oo runtii aan la fiirsan karin oo uusan eegan karin qof damiir leh waxaa arkaysaa dadka rayidka ah oo lagu garaacayo qoryaha iyo hubka noocyadiisa kala duwan iyadoo dawladdu ay u isticmaalayso awoodeeda meeshii ugu dambeysay xaafadda Tokyo ee degmada Yaaqshiid ana waxaa wahayd habeen uga duwanaa habeenadii hore kadib markii ay ku warheleen oo weerar iyo duulaan ballaaran ku soo qaaday goobihii ay degnaayeen arrintaas waxay keentay in dadkii shacabka ahaa ee la kulmeen argagax gelin kaga timid dhinaca ciidamadii dowladda federaalka Soomaaliya halkaas ay geysay waxayna ku wateen cagafyo waliba ciidamadii ugu faraha badnaa ee abid dowladda xasan sheekh ay u adeegsato burburinta dhulalka taas oo loo fasirtay markan ay si toos ah dowladda ugu soo jeesatay ee awood u sheegato dadka shacabka ah ana laga dheehan karaa qaabka dowladda federaalka maanta ay u adeegsanayso diyaarado dagaal sidoo kalena ay u adeegsanayso ciidamo aad u fara badan oo cagaf wata xogta hadda aan helayno waxa ay tilmaamaysaa in dadkii shacabka ahaa ee deganaa dagaal toos ah kaga hortageen ciidamadii halkaas tegay ee xaalada duulaanka ku qaaday ee xaafadoodii ka saaray waxaan xogta ku haynaa sidoo kale dadkii shacabka ahaa hadda ay banaanbaxyo waaweyn degayaan isla markaana jidadka ay taayaro ku gubayaan dad shacab ayaa dhibaato soo gaadhay oo dhaawacyo la gaarsiiyey qaybtoodna ay suurtagal tahay inay u dhintaan marka loo eego dhaawacyada soo gaaray halistooda rasaas ayaana dadka loo adeegsaday iyo jirdil looma tuurin dadka shacabka ah wax loo reebtayna male xaaladooda meel adag ayay maraysaa maanta sababta loo barakicinayo oo dhulkan wuxuu daba socdaa dhulalkii ay dowladda hore dadka shacabka xoogga uga saartay laakiin tan maanta waxay uga duwan tahay in dadkii shacabka ahaa iyo ciidankii gacmaha iskula tageen waxba laisku reeban weliba xilli habeennimo ah in xalay ciidamo iyo cagaf wada socda ay xaafadaha galeen taasna waxay kala sinaayeen dadkii shacabka ahaa ee horey loo barakicinayay toronto waxaadna moodaa dadka shacabka laftirkooda inaysan weli baraarugsanayn sababtoo ah in walba ama koox walba marka la soo gaaro ayay dibadbax sameeyaan oo urdada ka toosaan inta ka horreysa laakiin waxaa moodaa inaysan aad ugu baraarugsanayn dulmigaas laysku fiirsanayo in ay ka dhalanayso in dulmigii uu baaho oo qof walba uu gurigiisii ugu tago sababtoo ah hadday awoodooda midayn lahaayeen oo marka horeba ay hal meel isugu imaan lahaayeen ay mudaharaadi lahaayeen xaaladdu sidan waa ka adkaan lahayd laakiin iyaga ayaa kuwa hadda lagu jiro dhulkooda oo xalay dhan dhulkooda lagu jira oo la burburinayay kuwa kalaa dusha ka daawanayay oo iyagana ama maanta ama caawa loo socdo weli waxaan xogta ku haynaa degmada Howlwadaag oo kale in la galay oo burburinta ay hadda ka bilaabatay loo aabayeelaya ma jirto dowladdana waxeedu waa xoog iyo inay qaab qasaba dadka uga saarto guryaha
weliba ku disho qofkii isku dhajiya waana go'aan xasan sheekh iyo dowladdiisa ay soo gaareen. waa tahay arrintan waa la wada arkaa inay dulmi cad tahay dadkii la dulminayo xoog loo maaragtay ciidankii xoogga lagu baadayo oo ciidankii Soomaaliyeed loogu talagalay inuu ilaaliyo maaragtay iyagii ay dadkii laynayaan khaasatan bulshada gobolka Banaadir maxaa la gudboon sidee looga wada hortagi karaa iyadoo la wada jiro oo hal mid la yahay dulmigan uu samaynayo xasan sheekh maxamed waxaa looga hortagi karaa inay dadka soo baxaan oo dibadbaxyada u midoobaan dhammaan degmooyinka isu soo baxaan haddii laakiin kuwa maanta dhulkooda la burburinayo sida horey u dhacdo kaleba indhaha laga daawado indhaha laga fiirsado waxaa dhacayso in qof walba iyo cid walbaba in loogu tegi doono fadhigooda iyagana saas si lamid ah markaasi la burburin doono weliba dowladda federaalka hadda waqtigeedu dhammaaday waxaad moodaa in markii hore waa tii mar dhexdaas ay go'aan soo saartay oo ahaa in la hakiyey burburinta dhulalka kadib markii cadaadis xooggan ay dareentay arrinta hadda marka weji kale ayay yeelatay maadaama dowladda federaalka ay mucaaradkii ka adkaatay oo xeyndaabka xaalana ay ku xareysay halkaasna aysan kasoo bixi karin almadaaqoodii la xadiday hadda waa shacabka keligood markii hore mucaaradkii garab ka helayeen dibadbaxyaal la abaabulayay oo looga soo horjeedo taas dowladda cadaadisay ku ahayd daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena xulashada wararka oo si toos aad uga daawanayseen Waman TV fadlan daawada haddaad ku cusub tahay baraha aan ku leenahay bulshada ku soo biir channelka subscribe noo saar muuqaalka like gareew share